أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شر وكل شر وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها وإياكم. أيها الأخوات، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. salaanta kadib walaalayaal, waxaan maanta rabaa insha allahu tacaala inaan wax yar isxasuusino acmaal maaragtay dadka mu'miniinta ah u fudud oo runtii janno lagu geli karo, oo ah asbaabaha jannada lagu galo. waxaan ognahay jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala inay tahay qaayaha iyo waxa uu qofka mu'minka ah u nool yahay. jannaduna dadka mu'miniinta ah waa waxa ay raadinayaan oo ay maaragtay waxa weeyaan ay u dadaalayaan oo ay u cibaadaysanayaan. jannadu waa miduu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala: wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جنة ومد إلهي سبحانه وتعالى قرآن كي سميلا بدن وكغا هدلي oo jazaha iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalmarinta uu ugu talagalay dadka mu'miniinta ah markay ilaahay subxaanahu wa tacaala soo ateecaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa ay qaataan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u soo hoggaansamaan, waxa uu u diyaariyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ugu qaalisan oo ah janno. jannadaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aankiisa ku yidhi: qul aunabbi'ukum bikhayrin min dhalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بما تعملون. markii laga soo hadlay bini aadamka inay maaragtay adduunyada jecel yihiin, oo maalka ay jecel yihiin, oo haweenka ay jecel yihiin, oo fardaha ay jecel yihiin, waxaasoo dhan markii laga soo hadlaa waxaa lagu yidhi lagu soo gebagabeeyey fi suurati aali cimraan aayaddeeda 15. ilaahay uu yidhi: qul aunabbi'ukum bikhayrin min dhalikum. war waxaasoo dhan oo farda iyo gabdho iyo maaragtay haween iyo dahab iyo fidda ah wax ka qayr badan ma idiin sheegaa? markaasuu ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala: liladiina taqow cinda rabbihim, kuwa rabbigood ka soo baqo ilaahay agtii waxay ku leeyihiin oo u sugnaaday jannaatun jannooyin tajri ay dureeraan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo, khaalidiina xaal ay ku waarahayaan fiiha jannadaa dhexdeeda, wa aswaajun mutaharatun, haddaad dumar jeceshihiinna haween daahiraad ah, iyo wa ridwaanu min allaahi, iyo rida allah subxaanahu wa tacaala ayaad ka helaysaan jannada dhexdeeda. wallaahu basiirun bilcibaad. jannada waa midda dadka muslimiinta ah oo ilaahay soo rumeeyey adduunkan oo rasuulkii raacay ay ma aragtay ay leeyihiin wey, oo ilaahay uu ku abaalmarinayo: wa atiicu allaha waarasuula lacallakum turxamuun wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin kullu nafsin dhaa'iqatu lmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lquruur.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. آيات كاس waxay tilmaamayaan ayuha al-akhawaat jannada iyo naciimteeda iyo dadka ilaahay ka dhowrsada adduunkan abaalmarinta ay helayaan. وطولها إلهي في سورة النساء تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك أرمها اللي يسو الشيكي هي أحكامتها اللي يدينسو الشيكي وحدود إلهي وي قفك إلهي أطيعه أو رسولك سأطيعه أو حدود إلهي أنا نحدد بن يدخله إلهي وحوق لنا يا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وقواري. وكذلك عملك صالحة أو قفك مؤمنك وكد ذاله وحيابها إلهي ووطلق إنه كأبا المريء وحكم ذا وهو وين جنة إنه قلي قفك نوع عاصو كلاء قفك إيمان لغيها لو عمل صالحة السماية إن جنة وكواري. والذين آمنوا وعملوا صالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ذليلا في سورة النساء. sidaasoo kale ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala camalka saalixa asagoo xoojinayo iyo iimaanka qofkii ilaahay isugu daraa inuu janno gelayo ayaa ilaahay wuxuu leeyahay waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati sanudkhiluhum jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha abada wacda allahi xaqa waa yaboh ilaahay weeye waman asdaqu min allahi qiila yaana ilaahay kaga run badan oraah soo maaratid waa cidna weeye ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات وماشى أصعدوي قفكي سمي أعماش صالحة ومن ذكر أو أنثى وهو مؤمن أصوى مؤمنا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وحكم آيات كاسي جنة إلهي وقبل قاضي ضدك إلهي سبحانه وتعالى الضيعة وإلهي سبحانه وتعالى الدويدة أنت جوغان عمل وناكسن سمايا إنه إلهي سبحانه وتعالى أسوأ تلماما يوليبا عملك أي جنة كوغليان إنه يهي وحل أي أودان أو الله صاري دشودة أو إلهي النحريستي سوح آنا أوصن أودين أوصن صارين قفك من آدم كأ أي إلهي وحول ليهي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ظالمين تنا نتيجة وطها مؤمنين تنا واقوة سمارتد ووعد الله حق وبلد إلهي أقاضي سبحانه وتعالى إن ذاتك مؤمنين تأجنذ أقليه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن والرضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ولا ليال جنة مركا وجنة النبي عليه الصلاة والسلام مركا لا يشكين أيو ووح أيسن على ابن آدم قلبي بشرنا أن كسر دعين سمارتد دقنا أيسن مقل إلا أيسن أرجوي نعموين كجنة مركا لا يشكين أيو وبيبا دريرو خمرة ملب مركا لليهي عانى لليهي معناه إذا معها عانها أدونك يالي هي ما أردت قمرة أدونك يالي معها هذا بولاش مسلم ده أولالك مسلم كأ وحربا إنا كوبر أرجيو أعمال آد أفضل قفك إلهي أفضل لنا سبحانه وتعالى وهدي أن سمينا جنة أنكو قلينو أعمال شاسي ويبديهين لكن وحربا قيب كمذا إنا ما أنت النفط هذه يتاذبك وحسوسيو walaasha muslimada ah waxa kamid ah walaalayaal acmaasha jannada lagu galo
قراءة آية الكرسي قبل النوم آية كرسي دا أولا أخريو انت عن لساحن كهر أخرسو آية كرسي مركاد أخرستيد جنة كوغليسا وصاص أعتداد كل ما تدبع سمارتي نبي عليه الصلاة والسلام وحكسو ناتي وردد كلينا ما أهاه صلاة كستو أتكتد قداشي ده هداد أخرستيد آية كرسي أو آد سا كل ما تد جنة كوغليسا حديث علماء قاركود أي حسن كل شيغان قارنا أي بحس صحيح جارسيان قارنا أي حديث كمارتي روايديس قيب كمدا أي وحكت مارتي كدران أي النبي عليه عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي قفكي أخرى آية كرسي أخريا دبر كل صلاة كستقداش ذا مكتوبة واجبة لم يمنعه من دخول الجنة جنة إنه قال وحكى كما هرتاجنه إلا الموت غير موي هذا جنة وحلقوا قال قراءة آية الكرسي في كل دبر كل صلاة مكتوبة صلاة كستو تكتي الظهر باتكتي آية كرسي أخري وحين كجر تابع أذكار الله أخريه والله قلت قالي إنه قفك أخريه مركا وتكذو جنة اللي قال حديث كاسي حديثكي أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه والنبي كوريني من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت جنة وحكى لك ما عليه غير أن باك عليس بمعنى مركز دمتو جنة قليسا يا هذا الكايري نبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو صادق المصدوق سمعة النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وحي با لو شيء أرنت وقضبوي وحصر راعه قراءة آية الكرسي قبل النوم أنت تصحن كهر إناد أخرسه مركا هداد أخرسه مركا آد معرتي وحوي آد ساحته هداد أخرسه وحويان وآسات كل ما تقعد بصوك عنبا جنة بعد جليسة جنة آيات جليسة نعم نبي عليه الصلاة والسلام وحكسونا تيسيدو كلا قفك تكذا لبي يتبرق عضوت ولبي يتبرق عضوت وصلادها كدن بيو أما قاركود كهريان أو سنوين كأ قفك أسجع مركز وتكذا صلادها سنوين كأ ولبدا رجعضوضة سببته ذا إن إلهي جنة كوجلنا يو قرنا إلهي جنة أوجد صيب بمعنى هذا إلهي قرو كل صو بمعنى وحتى يقف دي مارتي وحويان جنة قليباتها جنة بقى قرو لقاعد صيب نعم وحليها هي النبي عليه الصلاة والسلام حديث أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أي مارتي وحويان ورينيان أيها النبي عليه الصلاة والسلام أي وريني سان أيها النبي عليه الصلاة والسلام وحا أي كم غشي إنه يري النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد مسلم مجر الضون مسلم أو يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة ninkii tukadaa 12 ragcadood oo aan waajibka ahayn oo sunnada ah ninkii tukadaa ama macnaha ma tukado qof muslim ah oo adoon 12 ragcadood soo maartid illa haduu tukado bana Allahu lahu baytan fil janna ilaahi jannada wuxuu uga dhisayaa guri aw amasa illa buniya lahu baytun fil janna jannada guri looga dhisaya macnaha qof ahlu janna ah marka salaada subaxa 2 ragcaad ka horeyso salaada duhurka 4 ragcaad ka horeysa labana waa ka dambaysa marka halka waa 8 way salaada casarka sunno ayada raatib ama leh maghribka 2 ka dambayso waa 10 way cishahana 2 ka dambayso waa 12 way 12 ka ragcadood ninkii tukado oo daa'ima jannada ayuu gelayaa sida nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo oo leeyahay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam
مجرو الضون مسلم أو تكنها يلبي طبعا رجعات أو صنعة إلا هدي له لأنك النوع عاصا ما قفك النوع عاصا سمارتي جنة أيها إلهي يقول أقدس يا سبحانه وتعالى مركا حديثك ما من عبد مسلم بالي مركا عبدي وحاسوق ليه gabar baa soo galayso waxa soo galaya nin baa soo galayo soo maartid in badan waxa arkaysan shariicada ayadoo isticmaalaysa rajul iyo isticmaalayso markaas macnaheedu ma aha in dumarka ay ka baxsan yihiin ma aha nacam waa qodobka labaad weey waxyaabaha jannada lagu gala ayuha al-akhawaat waxa kamid ah oo nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam uu tilmaamay akhlaaqda wanaagsan al-akhlaaq al-hasana waxay kamid tahay waxyaabaha jannada lagu galo haddaad wanaajisid akhlaaqdaada oo noqotid qof dhaqan wanaagsan leh oo ummadda gaal iyo muslimba si fiican oo la dhaqmayo oo aan qaab darnayn oo dabeecad xumayn oo aan af xumayn oo aan mataqaanay waxa weeyaan ummadda markay aragtay aysan ka ashahaadanaynin dhibkiisa iyo aflagaadadiisa dad waxaa jira ummadda marka ay uu ka soo horbaxa ay dhahaan bismillaah oo ay ka filanayaan shar baa laga filanayaa shar haddii akhlaaqdaada marka ay tahay akhlaaq wanaagsan oo fiican akhlaaqdaa wanaagsan waxay ku gaarsiinaysaa meel aad u sarrayso jannaanaad ku gelaysaa miisaankaagana kor bay u qaadaysaa wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii abi dardaa radiyallahu canhu oo imaamu tirmidi iyo sunankaba ay soo saarayeen ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء ما من شيء مجرو أثقل في ميزان المؤمن قفك مؤمن كميزان كيسا كيحوق بدن ما أنت يوم القيامة كيعرس من حسن الخلق أخلاق ونكسن ميزان كأجر دي هدون نقد ميزان خير كيسا وبطل جنة جليسة جنة آيات جليسة جنة جليسة وحلي النبي عليه الصلاة والسلام مجره ميزان كمالنت يوم إلهي ميزان بو كان سنة يا ميزان بالكينا يا ضدك وحلو صار يا عمل كذا مصير كاية يا ماشى هذه سنة وحين قنيسة ماشى وميزان كاجا أبطل ماشى وميزان كاجا أبطل haddii xumaanta ay badato naar baad aadi ilaahay baan ka magan galna haddii khayr uu batana jannaad aadaysaa janno ayaad aadaysaa marka wuxuu leeyahay markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii miisaankiisa maalinta yowmal qiyaamo uu maaragtay akhlaaqdiisa wanaagsan ay badataa miisaankiisaa badanaya marka jannuu gelaya فإذا نفق في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وطولها الله سبحانه وتعالى نعم مركي أخلاق ذا إسكو ناجي هنقول نقف أمضى أي مركي أردت كما تقنا وحويا قبطه أو أي كاشهادته وطولها النبي عليه الصلاة والسلام ضدك وحا شر بدن qof markuu dadka uu ka soo horbaxo ay dadka ay ka baqaan shartiisa Soomaarti shartiisa markaas la iska laaluushayaa si shartiisa maartay waxa weeyaan looga bataqana waxa way badbaado marka arrin sahlan ma aha nacam وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه واتيء لها سئل رسول الله رسولك إلهي بوحى ويدي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وحدتك أو بدن أو الجنة كو قلان محيتها النبي قال ويدي مركاسها النبي وحكو جوابي تقوى الله إلهي أو لقد أرسل لقد بقى إيوه وحسن الخلق هي أخلاق ذا أو لوناجيه مركاسها وحاضر له ويدي وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار وحا النار تددك أي كو قلان وحا أو بدن فقال مركاسها وحيلي الفم والفرج أفكا يفرجيga labadaas way waxa u badan dadka naarta ay ku galaan ama naarta dadka galiyo oo maxaa laga wadaa afkana dad badan ma kontrooli karaan maanta dhan bay waxay rabaan bay sheegi waxay rabaan bay ku hadli
way iska mataqaanaa dadalmi ilaahay kama xishoonayaan ummadda kama xishoonayaan waxa weeye ma dhowrsanayaan xan iyo xumaan iyo maaragtay waxa weeyaan bay ku hayaan maanta dhan afkay ku hayaan carabkii bay ku hayaan qof walba waxbay ka sheegayaan dhinaca kale qof ilaahay u naxariistay maanta waad aragteen zinada iyo xumaanta iyo maaragtay wax caadi inay iska noqotayba maantayto ilaahay hanoo ceeb asturee oo dad badan maantayto waxa weeye aysan baba ka xishoonaynin soo maaragtid ilaahay baan subxaanahu watacaala oo maanta ay arkayso in iska dhaaf maaragtay laba inta isballansatay ayagu ku heshiye inay xumaan sameeyaanba in dadka iimaankaba ilaahay ka qaaday rag badan maantayto oo aad arkaysa inay saqiiradii xataa maaragtay intay ka zinaystaan haddana naftiba ka qaadahayaan oo maaragtay gabdhihii meel walba lagu xoogahayo oo maaragtay meel walba lagu mataqaanaa waxa weeyaan waxaynayo dhinaca kale dadkii baaba reer magaalnimaaba la mooday oo waxaa arkaysaa meelahan hadda qurbaha iyo la joogo ceebba inaysanba ahaynba dad badan maanta waxay ku dhaqmayaan oo ayba maaragtay caadi u noqotay ilaahay baan ka magangalnay subxaanahu watacaala oo ilaahay hana xifdiyo meel aan joognaba marka waxyaabaha naarta lagu galo oo dadka naarta u sababa waxaa ka mid ah afka iyo farjiga haddaad u meeldayin waxa aad ku qowlayso oodan u meeldayin meesha aad shahwada ku gudanaysid ood xaaraan isaga dhacdid waxa weeye naar unbaad aadaysaa ogo ilaahay baan ka magangalna subxaanahu watacaala dhinaca kale jannana maxaa lagu galaa adoo ilaahay ka dhowrsado ilaahay ka baqa oo xumaanoo dhan ka istaaga iyo akhlaaqdaada oo ay noqoto akhlaaq fiican masaladaa marka masale aad muhiim u ah weeye waayadan dambe zinadii waxay iska noqotay shay aan lagula yaabinba meelahan waxaan ku aragnay nin weyn oo reer naag buu iskala degan yahay wuxuu ku leeyahay waa caawiyaa oo yaa yidhi ii caaw soo maarid waa caawiyaa buu ku leeyahay gaariguu ku wataa meeluhu la wareegahayaa waa mataqaanaa guriga u dhex jiifaa waa caawiyaa buu ku leeyahay waryaa ku yidhi caaw soo muxramkaaga ma aha soo mataqaanaa qof maaragtay xaaraamkaa ama aha yaa ku yidhi maaragtay waa masale u baahan marka dadka muslimiinta maantayto dadkan weliba qurbaha yimid inay ilaahay ka dhowrsadaan subxaanahu watacaala ilaa aan aragniba sidii hadda gaalada in loo dhaqmahayo oo la leeyahay maaragtay waxa weeye waa maaragtay waxyaabo aanan ilaahay shareecadiisa uusan ogolaanin ay dadkii ku qowlayaan ama ay maaragtay waxa weeyaan ku dhaqmayaan ama ay maaragtay samaynayaanba arrintaa marka arrin waxa weeye rabo dadka muslimiinta ah inay ka fogaadaan wey waxyaabaha marka jannada lagu galo ayuhal akhawaat waxaa ka mid ah sidoo kale oo nebiga uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam tahaarada iyo weysada inuu qofka maaragtay si fiican uu u weysaysto soo maaragtid oo markuu qofka weysaystana mar walba weysadiisa qofka uu ilaashado oo weysadana qofka uu badsada jannuu ku gelayaa qofka hadduu weysaysto mar walba weysada uu weysaysto jannaduu ku gelayaa labada maaragtay sheekhayn imaam bukhaari iyo muslim waxay soo saareen xadiid abi hurayra nabiga uu ka warinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska qisuu lahaa bilaal ayaa maaragtay ayaa cinda salaati alfajr baa nabiga wuxuu ku yaa bilaal xadithnii biarja camalin camaltahu fi lislaami fainii samictu dafan calayk bayna yadayi fi ljanna قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة الليل أو نهار إلا سليت بذلك طهور ما كتب لي أن أصلي الله أكبر النبي عليه الصلاة والسلام أيا حديث كسيدة قسو كوي ميدة النبي عليه الصلاة والسلام باجندا هبين لجليي oo maaragtay waxa weeyaan nabiga la tusasoo jannada ku jiro markaasuu nabiga wuxuu ka maqlay hortiisa shanqar dacas kabuu ka maqlay markaasuu nabiga fiiriyey waaba ninkii bilaal ahaa oo ka horreeyaba nabiga hortiisuu ka maqlaba cajiib markaasuu subax wuxuu ku yidhi war bilaalow bal waxaad ii sheegtaa camal aad samaysay oo aad rajaynaysa jannada inaad mataqaanaa ku gasho aad jannada kuu hormarto weliba markaasaa maxaa yeelay wuxuu yidhi waxaan maqlay kabahaaga shanqartoodaan horteeda ka maqlo jannada dhexdeeda
marka waa cajiib bilaal nabiga calayhi salaatu wasalaam raggu u qiray inay ahla janno yihiin buu ka mid yahay soo ma aragtid ilaa rag badanba waxaa jira nabiga siyaabo kala gedisan oo ugu qiray inay yihiin ahla janno ragna waa ragga la yidhaahdo 10 mubashiriin oo 10 la yaqaano wey nacam markaasaa wuxuu yidhi ma samaynin camal oo aniga aan isleeyahay jannaa ku gelaysaa ilaa waxaan u malaynayaa buu yidhi ma qaadan buu yidhi weyso ilaa haddaan weyse qaatuu yidhi habeen iyo maalin waxay noqotaba waxaan ku tukadaa buu yidhi weysadaasi 2 ragcadood baan ku tukadaa buu yidhi sallaytu bidaalika tuhuur maa kutiba lii an usalliya intii ilaahay ii qoray inaan ku tukadaa buu yidhi arrin marka waxaa weeye aad muhiim u ah waaye oo la raba qofka muslimka ah inuu ogaado waxyaabaha lagu gelayo jannada ilaahay waxyaabaha lagu gelayo waxaa ka mid ah in qofka weysada uu maaragtay weysaysto oo markuu weysaystana maaragtay wixii ilaahay u qoray uu u qadaro uu tukado maaragtay masalada marka waxaa weeye masale aad iyo aad muhiim u ah weeye nacam wakadalika ayuha alakhawaat waxyaabaha jannada lagu galo waxaa ka mid ah qofka salaadaha 5 salaadood haddii uu awoodo qofka inuu masaajidda ku tukado iyo jamaaca inuu ku tukado walow dumarka aysan qasab ku ahayn nacam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay hadda ka hor waxa uu yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam حديث صحابي اللي أورنج ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه أياه وحليه كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أيان لب مارته وحويان صبح مارته همين لبريي فآتيته بوضوئه وحقو كاني بوضوئه والويسات كيسبا كاني iyo walkii uu xaajada ku gudanayay nabigu u shaqeynayay u khaadimayay maartay waxa weeyaan rabiicata ibn kacab al-aslami nacam faqala li markaasa wuxuu yiri sal war maanta wax weydiiso faqultu markaasan ku yiri as'aluka murafaqataka fil janna waxaan ku weydiisanayaa jannada inaan kuula rafiiqo oo jannada aan maartay rafiiq kula noqdo oo waday kula noqdo saaxiib kula noqdo قال مركاسا وحو يري أو غير ذلك وروح كلمة وديسنيسا قلت مركاسا إريبو يري هو ذاك أنت أمانك وديسنيا قال مركاسا وحو يريبو يري بل صفة عن فيري مركاسا وحو يريبو يري مركا أنت إري فأعني على نفسك بكثرة السجود هذا وحبت إلى جنة يقول نقطة الرفيق فأعني يود ذلك يوكلمه على نفسك نفتها بكثرة سجود إلى سجود عاد بدي سجود بدي بمعنى صلاة بدي وي صلاة واجب كأ بدي وي أو صلاة واجب كأ تكوي صلاة واجب كأ تكوي رواه مسلم أرنك أمريكا وحقوق السنة إن جنة اللي جليه وحابة أنت أسكسر دار حديثك سيدو كلا النبي عليه الصلاة والسلام إمام مسلم وسو ساري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والنبي قولها الصلوات الخمس صلاتها شنطة والجمعة إلى الجمعة يجمع إذا كلا أنت أدحيسو والرمضان إلى رمضان إلى رمضان أنت أدحيو مكفرات ما بينهن وإلهي كدافا وحي أدحيي وذنوبها بإلهي أدافا سبحانه وتعالى بإلهي كدافا سبحانه وتعالى وقرما إذا تنب الكبائر مركب قفك وكفو كبائرته iyo dunuubta uu ka fogaado way waxay kamid tahay ayuha al-akhawaat waxyaabaha jannada lagu galay ayay kamid tahay salaadaha oo la xifdiyo waajibka ah oo la xifdiyo waqtigeeda la xifdiyo maaragtay waxa weeyaan haykalka iyo qaabka iyo sida loo tukanayo oo hadduu nin yahayna ninka uu ku xifdiyo meelihii loogu talagalay in lagu tukado iyo maaragtay masaajidii inuu ku xifdiyo qofka nacam waxyaabaha walaalayaal jannada lagu galo waxaa ka mid ah aadaa'ul xajji almabruur qofka inuu xaj guto oo si dhab ah maaragtay xajka u guto xajkiisana uu noqdo xaj mabruura uu noqdo waxyaabaha jannada lagu galo ayay ka mid tahay
أبي هريرة رضي الله عنه أيا نبي وحكوري إنه يري أبي هريرة النبي كان كم قال أصغر ضحيه من حج قفك حجيا وحج آذا فلم يرفض أصغر أن قفكاسي واحد ذنبي أصمين ولم يفسق فسوق لمنا أصمين رجع كيوم ولدته أمه وحصان نقضى سيدي أصغر وهو يدي سيدي أي كل شيء أو كلاه وصان نقضى حال جوضا معناها ذنوبتي رب إلهي كباب يا سبحانه وتعالى حمانتي رب إلهي كباب يا سبحانه وتعالى marka waa arin aad iyo aad muhiim u ah qofka muslimka ah in uu haduu awoodo xajka aado oo gabadha muslimada ah ayuutada ay aruurinayso iyo hagbad waxa tiraahdaanba inaad markaad aruurisid aadan guri iyo adduunyo ku dhisine aad ma aragtay waxa weeyaan xajki inaad gudan karto isku daydo oo adaad muxram heli karto aad ma aragtay xajigaaga israacdaan oo ma aragtay wiilkaaga aad israacdaan oo ma aragtay aad xajisid waxa lagu galaa waxyaabaha jannada lagu galay kamid tahay waxaa kamid ah ayuha al-akhawaat waxyaabaha jannada lagu galo imaadatul adaa can tariiqi waxyaabaha dadka dhibayo oo dariiqa laga qaado ayaa kamid ah waxyaabaha ma aragtay jannada lagu galo waxaan rabaa inaan ku soo koobo insha Allah ta'ala xadiiskan inaan ku soo koobo maadaama waqtiga salaada maartay iqaamadii ba hal daqiiqo ka dhiman tahay marka imaadatul adaa can tariiq waa la dhaafay anay sugayaan wadada oo waxyaabaha dadka dhibaya laga fogeeyo waxay kamid tahay asbaabaha jannada lagu galo abi hurayra radiyallahu anhu ayaa waxa uu leeyahay nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam laqad ra'aytu rajulan nimban arkay yataqallabu fil jannati jannada dhaxdeeda ku gadgadoomayo fi shajaratin qata'aha geed uu jaray darteed oo min dhahri tariiqi wadada dhaxdeeda uu ka jaray geedkaas oo kaana tu'di naas dadka dhibi jiray wadadii buu ka fogeeyay oo ka qaaday wax dadka dhibi jiray geedkii buu jaray jannadii buu ku galay sababteeda arrinkaas ku galay waa marka mas'ala muhiim ah weeye oo rabo dadka muslimiinta ah inay ogaadaan oo dariiqa waxa yaalo xumaana in la dhaafiyo laga qaado ay ma aragtay tahay waxyaabaha jannada lagu galo ilaahay waxaan weydiisanayaa subxaanahu wa ta'ala inuu jannada geliyo jannada noo waajib yeelo أعماش جنة لوجيان إله نوفض ذيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين جزاكم الله